أما بعد عباد الله ولا ليال سيدين الله وضع سعنه قف كستون مؤمن أو أكسون يهي الدون كان مال مير أو كوبا بين كل النهي مال مير أو لينغا قريي لكن مركا أي ضماتو أو وقت جيدو ويمادو أو وقت جو إنغا ضمادو آني دقيقتنا فينا آني كدن بينين إلهي سبحانه وتعالى تلمامي إن النف والبأي جيريدة من دونته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نف والبواعي من دونتا جيريدة إيا موتك أي إله الله سبحانه وتعالى ما لنت قيامها نقفك وحاو سميي أيا لو أوفن يا لو أبالين يا قفك نار تلقى فوقيو جنة هويجي سلقى ديغا جنة لقليو كاسا ليبان تيقوش ربطها قاتب إله الله سبحانه وتعالى مركل إلهي وحاو تلمامي نفتا مركي أجشيدو تمادو إنان هرنا اللوديجين دبنا أن لوديجين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قفك مؤمنك وحاول علي اللقدبون إنو مرول بقف سوت شيدا ويهي نولشني إني كوبان تهي مرول بقول الصعدو الديار قروبو أجشي سسدو أولا كل ملها واي عملك وحاو كحران يهي iyo abaalmarintu waxay ku xidhantay qof walba amalkiisu waxa uu noqdo hadii khayr uu shaqaystayna khayr baa lagu abaalinaya hadii uu shar shaqaystana shar baa lagu abaalinaya waxaynu insha Allah maanta wax yar istul taagi doonaa biidnillaahi taala khaatimada wanaagsan asbaabaha lagu gaaro calaamaadka ay leedahay iyo waxyaabaha lagu garanayo iyo dadkii wanaagsanaa siday ugu dadaali jireen inay khaatimo wanaagsan ilaahay ugu soo khatimo oo ay aad uga warwari jireen maxaa talow amalkooda loogu soo khatimi doonaa walaalayaal in khaatimada iyo gabagabada qofku noloshan uu ku leeyahay laga sheekeeyo wax sahlan maaha quluubtu waa ay ka gilgilataa qofku marka khaatimada looga warramo wax sahlan maaha ونلوشيسي أو صو أفحر ميسا ونلوشيسي أو صو جبجبو ميسا قفك إلهي وناجا وكو أباليو وناجو صو جبجبيو وقد قف ليباني قفك أو حمان لو صو جبجبينا وقف نلوشن كخساري إلهي سبحانه وتعالى مر البوحة ونقول الدردار ميا إنه جبجبدا الديار قرونه oo ay geeridu inoo timaado inagoo muslimiin oo ilaahay u hoggaansan ilaahay ba quraankiisa ku tilmaamay yaa ayyuhalladheena aamanu taqullaha haqqa tuqaatih wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun dadka muuminiintow ilaahay cabsidiisa dhabta ka cabsada hana dhimanin oo geeridu yaanay idin iman idinkoo muslimiin oo ilaahay u hoggaansan mooyaane رسولك حلي عليه الصلاة والسلام مركا وقفك إلهي ولدون وناقه أو خيرك لدونه إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله مركو إلهي أو دونكيس ولدون وناق وعمل قليا أو شقاليسيا أصحابته وحيرادا سذيبوا عمل قليا يا رسول الله رسولك وحاوير يوفقه العمل الصالح قبل موته وحاو إلهي وافتشيا عمل كوناكسن انتانو لمن ولا ليال سداسا إن لوغو ديار قروبا أي تهي سي عمل كإلهي نوغو سوغا بقبين يأو نقضم دوناكسن أنبيادين وائي كد دالي تشيرين أو هرمود وهادت كوناكسن نبي الله إبراهيم عليه السلام إيو نبي الله يعقوب انتبا أولاد دودا وحي لدردار ميين أو أي كل هايين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
حدمانينو غيردياني إذن إمن إذن كو هوغانسن إلهي وهوغانسن موياني سفيان الثوري تابعي جليل كاها أيام مالين مالمها كمدو آذو أويي تبنا أهل كيسي أيا أنحي محاكا أو هني رهدم الدنوب تادا مركاسو حير الدنوب توا أي كسهلن تهي أتشاشا يطلو سيدا يكون دنبين دون تمروغا دا يغو هايسو سيدا سيغو وروري تشيرين مالك من دينار أيا وحلقا وريا إنو هبينو دن وإلهي وإستاقي تشيري كدبنا وقركي سقبان تشيري isagoo ilaahay u taagan oo cibaado u taagan markaasuu waxa oran jiray ilaahayow wax adiga ugu ogaal badan oo u yaqaana halkeebaan degaya ma jannaan degaya mise naar oo saakinkayga iyo maskankayga halkan degaya waa halkee ilaahayow halka uu maalik degaya adaa yaqaane ilaahayow khaatimo wanaagsan baan ku weydiistay walaalayaal sidaasay murugo badan asxaabta iyo dadkii wanaagsanaa ay ugu haysay sidaasaanay ugu dadaali jireen inuu ilaahay camalkooda ugu soo khatimo camal wanaagsan inuu ugu soo khatimo mid asxaabta salafka ka mid ah ayaa waxa uu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay naftiisa uu ka qabto isaga oo sujuudsan tiibaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalay abu thaclab al-khashani iyo mujaahid waxa laga soo wariyaa inay iyaguna naftu ay u timid iyagoo ilaahay u sujuudsan cabdurrahmaan ibn abbaan ayaa isna waxa la wariyaa inuu maalin maalmaha ka mid ah uu ka soo baxay gurigiisa kadibna uu masaajidka u yimid salaatu duha uu ku tukaday kadibna naftii halkii kaga baxday oo halkii uu ku dhintay sidaasay ugu dadaali jireen ilaahayna waa u rumayn jiray yaxya ibnu camaar baa isna waxa la tilmaamaa inay geeridu u timid isagoo tafsiir akhrinaya oo suuratul qiyaama tafsiirayo akhrinaya sheekh cabdilxamiid al-kishki isagana sidaasoo kale maalintay geeridu imanaysay maalinta oo kale ahayd maalin jimco ah oo uu soo maydhay kadibna masaajidka ayuu yimid laba ragcadood buu tukaday ragcaddii labaad isagoo ku jira ayay ruuxdii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oofsaday oo ay naftii u timid yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit qofku marka uu wanaagga ku dadaalo ilaahay waa uu dhabeeyaa siduu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaa la wariyaa inuu rasuulku yidhi man maata calaa shayin bucitha calayh qofka shay ku dhinta waa lagu soo saara sidoo kale horaa loo oran jiray man caasha calaa shayin maata calayhi qofku waxa uu ku dadaalo uu la noolaado ayay nafta iyo geeridu kaga timaadaa walaalayaal quluubta ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay baa gadgadiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yuqallibuhaa kayfa yashaa siduu doono u gadgadiya inuu qofku in badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisto inuu qalbigiisa uu ku sugo qowlka thaabitka iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku sugo waayo acmaashu waxaa lagu abaalmarinaya waa khawaatimta iyo waxaa ilaahay ugu soo khatimay qofka waxaa laga yaabaa inuu qofku camal badan uu sameeyey laakiin waxa weeyaan in khaatimadu ay ka xumaato inta u badanna niyadda ayay ku xidhan tahay sidaa daraaddeed buu rasuulku wuxuu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam camal sameeya qof walba wixii loo abuuray bay u fududoo loo fududeeyey mar kale rasuulku wuxuu lahaa calayhi asalaatu wasalaam inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha iyo abaalmarinteedu waa khawaatiimta waa wixii loogu soo khatimay rasuulkuna waa uu ku ducaysan jiray calayhi asalaatu wasalaam إنه إلهي خير وصو ختمه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها إلهي عربت يد الضنب الرمها يقول أنه وناجب رسولك كدو عيسان تري عليه الصلاة والسلام آد بي ولا لي المال ما هدن بقيرد وبضطي ما لنك استوى حال الشيء انت حبالين بحسمين
tobanaan qof in maalin walba la aasayo inuu garanayno waxaa loo baahan yahay qofka muuminka inuu diyaar garow uu sameeyo ilaahayna in badan u weydiisto inuu ilaahay khaatimo wanaagsan ugu soo khatimo waxaynu wax yar ka tilmaami doonaa asbaabta iyo waxyaabaha lagu gaadho inuu qofku khaatimo wanaagsan ilaahay ugu soo khatimo qodobka koowaad ee lagu gaadhaa waa qofku inuu qof caqiidadiisa ay saliim taho iimaan dhab ah uu qofku la yimaado rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man maata laa yushriku billaahi shay-a dakhala aljanna qofka dhinta isagoon ilaahay cidna la wadaajinayn cibaadadiisa ilaahay jannada ayuu ku abaaliyaa jannada ayuu galaa ilaahayna waa ka qur'aankiisa ku tilmaamaya inuu dadka mu'miniinta ilaahay si dhab ah u rumeeyay inuu ilaahay qowlka thaabitka uu ku sugaayo marka ay dhimanayaan iyo marka qabriga la geliyaba qodobka labaad ee uu qofka sabab u noqon kara inuu ilaahay khaatimo wanaagsan uga soo khatimo waa inuu qofku ku dadaalo acmaasha saalixaadka ee wanaagsan cibaadaadka inuu ku dadaalo kuna toosnaado ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina qaaluu rabbuna allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ضدك مؤمنين تيرا هذا إلهي من رميني كنت تصنع إيمانك مركاي لمن ين ملائكة أياكو سود دقيسا إيغو أبو شارين يوله مروغ دشين ما يهانين حعبسانينا وحال إذي كبو شارين يتشندي إلهي إذي كو يبوهي بشارadaasay helayaan qofka iimaanka la yimaada ee amalka saalix la yimaada ku toosnaada qodobka saddexaad ee sabab u noqon kara qofku inuu khaatimo wanaagsan uu ilaahay ugu soo khatimo waa inuu qofku salaadaha shanta uu ku dadaalo jamac iyo jamaacaadka inuu ku dadaalo rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man salla albardayn dakhala aljanna labada qabqabow qofka tukada ee siday u ahayd u tukada jannada ayuu galayaa labada salaadood waa laba inta u badan yimaada hurdo kadib labada qofka ilaaliya inta kalena waa uu ilaalinayaa sidaa daraadeed ayuu rasuulku wuxuu leeyahay qofka labada aad u ilaaliya ee siday u ahayd u tukada jannada ayuu galay rasuulku mar kale waxa uu inoo tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam in shayga koowaad ee maalinta qiyaamaha la iska xisaabinaya ay salaada tahay salaada qofku haday u hagaagto in uu liimaanayo qad aflaha wa anjaha rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka salaadiisu u hagaagtaa waa uu guuleysanaya waa uu liimaanaya qofka salaadiisa maalinta qiyaamaha lagu qabsado ee ku guul daraysana acmaashiisa kale uu ku guul daraysanaya qodobka afraad walaalayaal ee sabab u noqon kara khaatimo wanaaga waa inuu qofku dhanni wanaagsan iyo malo wanaagsan ilaahay uu ka rumeeyo isagoo oo aan isdhiganayn oo amalkii wanaagsanaa mar walba la imanaya inuu ilaahay malaha wanaagsan uu ka malaysto rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiithul qudsiga waxa uu ilaahay ku leeyahay anigu waxaan ahay ana cinda dhanni cabdi bi malaha uu adoonkaygu iga malaysa agtiisaan ahay hadduu khayr iga malaystana waan siinayaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu qodobka shanaad walaalayaal ee khaatimo wanaaga lagu mutaysto waxa weeye qofku inuu niyo wanaagsan oo aad run ah oo khaalisad ah oo wanaagsan inuu qofku la yimaado walow aanu camalka uu tamaniyay yaanu sameeynin hadduu niyad wanaagsan iyo uu la yimaado ilaahay waa uu ka abaalinaya سيد حديث كصحيحة ورسولك كل يحي من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه قفك شهادة إنه إلهي الدرت وشهيده قفك التمنية إن يد وناكسن كدونا أو صدب أدونا إلهي وحاو قارسين يا منازشة أي قليان تتك شهادة فراشك صباحا كل انتهى معناها وناقا وتمنية نيذا وناكسن ولا يمد أي إلهي كو أبالينيا قضبك اللحاد ولا ليال ee lagu mutaysto khaatimo wanaaga waa inuu qofku ku dadaalo inuu khayrka la baxo sadaqada iyo macruuf iyo dadka wanaaga inuu sameeyo inuu ku dadaalo
رسولك حلي عليه الصلاة والسلام وناقياش وقفك الصمينيو وحا أي قفك كحجابتا إنو صحن أردنتو مصارع السوء إنو صحن أردنتي كحجابتا وناقات سميسي خير كاد فشي أيا كحجابة يا خاتم حمد قضب كتضبات إيه لغم تيستو خاتم وناقة وحوية إنو قفك بتصدو حصوص جيردة إن قلبي سكمنان جيردة أو حصوصناضو وأي مركز جيردة حصوصناضو qalbigiisii iyo camalkiisiiba waxa u jihaysanayaan inuu qofku camal wanaagsan uu la yimaado oo jiddiyad iyo dadaalkiibu la imanaya sida daraadeed rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu taa inugu boorinaya akthiru min dhikri haadimi ladhaat badiya macaangooyaha sheegitaankiisa buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam si ay naftii u dareento ajasheedii inay soo dhowdahay camalkiina ay la timaado qodobka sideedad walaalayaal ee khaatuma wanaaga lagu mutaysay sabab u noqda waa qofku inuu dhikriga ilaahay iyo xuska ilaahay inuu qofku uu badiyo qofku wuxuu carabkiisu la qabsado uu qalbigiisu la qabsado ee uu joogto ka dhigto ayuunbuu hadhowna uu ku dhawaaqaya hadduu carabkaasi carab dhikriga ilaahay mar walba uu ka qoyan uu noqdo marka ay geeridu u timaado ذكرك إلهي أيو قبصنيا سيدا درادين إنه قفك عرب كيس وناقة هذا الكوناكسن يحسك إلهي إنه قفك أوبرو صباب وحي إنه قنسا مركا إنه إلهي وقولك وناكسن وافتشيو قضبك السقالات ولا ليال خاتم وناقة قفك الصباب وقل نقضا وإنه قفك إلهي أوبريو إنه إلهي قولك وناكسن وكسقو خاتم وناقنا إنه إلهي وحويان وكم مطيستو وإلهي خاتم وناقا أوصي مرول بإلهي وبريو رسولك نو الدعاء سنجري عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلبي يذا قد يو دين تادا قلبي يكسك بو رسولك ورنجري عليه الصلاة والسلام ضدك مؤمنين تنا إلهي وحولي وحيد هذا مرول با ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلهي وقلبي يده هل يحن قلبي يده مركزنا هنون سي كذب إلهي وحقا هنقل يحن بأورنجرين ولا ليال وحيابهاس يا أسبابهاس وكو أقومهم سن قفك كو سبب قلنا قنكرا إنه خاتمه وناكسن وكو نلشي سلوكو سو خاتمه دنوبتا إنه قفك لازمه مع السيادة إيا حمانتا إنه سكدح دنبضا qofkaasi laga sugi maayo inuu khaatimo wanaagsan ilaahay ugu khatimo waayo macsidaasi hadhow qofka waa ay ka soo muuqanaysaa marka qofku inaanu macsida isku ilaawin toobadkeenka uu ku dadaalo uu ka soo noqdo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofku macsuum maaha macsuuda way ka dhacaysaa laakiin mar walba tawbada iyo inuu ilaahay xaqiisa u soo noqdo inuu ku dadaalo waxaan insha Allah ta'ala halkan wax yar ka sii tilmaami doonaa waxyaabaha قفك علامات كلوجو قرطه إن وحوي خاتم وناك لوجو ختمه قفك ولا ليال وعلامات ويبدين وحكمد قفك إنه كلمة التوحيد وكل واقه ومركا لمنا أيو لا إله إلا الله هذا الكيس يقدم بيسه قفك أنت أي هذا الكيس يقدم بيسه رسولك حير عليه الصلاة والسلام دخل الجنة أو وجبت له الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة برسولك لي عليه الصلاة والسلام قفك هذا الكيس يقول كيس يقدم بيسو لا إله إلا الله جنة أيا واجبتي برسولك لي عليه الصلاة والسلام كالمدني انت أدون كالتشوغو وأي فضود هاي لكن مركا أي نفتو أي قفك كبحيس كلمة فضود ماها قفكي إلهي سبحانه وتعالى سو عبد الشري كلمة دا كد دالي الشري أيوم بإلهي وافتشيا قار بدنبا وحلقو يري يقو أي نفتو كسيب حيثو قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل واق مركز يري كلمة كسوان كل واقي كرا إلا لا إله إلا الله موية بربي إيقا أدك تاي مركز قفكو هدي الربا إلا وافتشيو وإنتو أدونك أوتشوغا وإنو لا إله إلا الله وبصدا وكد دالا عمل كيدا إيا وحي فريسي إنو قفكاسي لا يمادو وحيابها مبشرات علامات كي قضب كاللبادة وحا كمد
قفك إنه إلهي درتي وشهيده وإلهي درتي ودنته وإلهي سبحانه وتعالى تلمامي تدك إلهي درتي وشهيده يقو الدقالمي لأجل كلمة الله إن كلمة إلهي سريس درتي الدقالمي إن أنا دتكاسي أموات أنا أهينك والنول أيهين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون على مدى صدحات ولا ليال اللي قرطو قفكاسي إنه وحويا خاتمه ونكسن لوغو ختمي وإنه هبين كجمعة إيا مالنت جمعة بإنه لنتو وحلقا قفك لنتا قف مؤمن أها مر والبشر وحا كحرا قف مؤمن إلهي الله يقان إنه يهي لكن قفك كلا الله يقان كأنا هين هدو انت وحبا وتري ميسو لكن قفك وناكسن صالحة الله يقان كمؤمن كأه هدو هبين كجمعة إيا مالنت جمعة ودنتو ومن حسن علامات الختام ختام كيو قبل نلشي سوى علامته وناكسنة المامية رسولك حلي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر مجر قف مسلم أو انتهى بينك الجمعة أما مالنت الجمعة إلا إلهي وحو كبد بادية عذاب القبر فتنة قبر أي إلهي كبد بادية على مدها ولا الوحى كمد إنه قفك مؤمن كي ودنتو إساقو دفور كيساسي وددد سيهي أو دفورك وددد وكيمادو وعلى مدها حسن الختام تلمامايا رسولك حلي عليه الصلاة والسلام المؤمن يموت بعرق الجبين قفك مؤمن كي وحاول انتا isagoo dhididaayo dhafoorkiisu buu dhintaa buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wassalaam yani bishaarada loogu bishaaray amba sakaraadka ilaahay u fududeeyay darteed ayaa uu la dhididayaa dad badan oo salafkiina waa ay ku dhinteen xataa rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa laga soo wariyaa sidaa daraadeed waa calaamaadka tilmaamaya inuu qofkaasi khaatimo wanaag uu ilaahay ugu soo khatimay waxaa kamid ah walaalayaal waxyaabaha calaamaadka xusnul khitaamka tilmaamaya qofka inuu shahiido isagoo diintiisa iyo cirdigiisa iyo xoolihiisa iyo naftiisa waxa weeyaan qof dhaalim ah ka difaacaya isagoo la dulmiyay oo naftiisa iyo diintiisa difaacaya qofka la dilo isaguna waa waxyaabaha tilmaamaya khaatimada wanaaga rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قفك الذي لا يسقط دينتيس دفاعية قفك الذي لا يسقط أهل كيس دفاعية قفك الذي لا يسقط نفتيس دفاعية قفك الذي لا يسقط دفاعية مال كيس وشهيد برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا على الوحى كمد calaamadaha khaatimo wanaaga tilmaamaya qofku inuu dhinto isagoo ku sabirsan xanuunada rasuulku tilmaamay kamid oo waxa weeyaan xanuunada uu rasuulku tilmaamay qofka ku dhacaan inuu shahiid yahay qofka ku sabra inuu waxa weeyaan xanuunada ku dhacana khaatimo wanaag ay tilmaamaysa rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ash-shuhadaa 5 shamba shahiidiinta kamid qofka taacuunka u dhinta iyo qofka calool xanuunka u dhinta amba kansarba wax la mid ah ku dhacaane qofka ay meel ku soo dunto qofka waxa weeyaan qarqooma ee haftooma qofka waxa weeyaan afureenka intuba rasuulku wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay shuhada u yihiin waxa kamida gabadha isku umul aroorta amba isku dhimata rasuulku iyadana waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay shahiidad ay tahay يعني حنونada iyo geeriyaha noocaas rasuulku wuxuu ku tilmaamay inay khaatimo wanaag ay tahay oo qofka u dhinta inuu shahiid uu yahay laakiin mar walba waxa ku xidhan qofkaas qof muumina inuu yahay oo alla yaqaan oo ay xanuunkan iyo xaaladan ay ku timid ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa inuu khatimo khaatimo wanaag inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu khatimo inuu weydiisana kulli naftu way dhimanaysaa maalmo kooban bay leedahay إلهي وحن ويديسنا خاتمه ونين نوغو خاتمه إنه عمل كأنه إلهي آخر الكلام إنه كدقو لا إله إلا الله إنه كدقو إنه إلهي سبحانه وتعالى ويديسنا إنه إلهي إنه طاعة عبادة كترة
إنه إلهينا الدليل إنه إله سبحانه وتعالى ويدي سنينا ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث قال رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما